nin acraabi oo magaalada madiina duleedka iga deganaa ayaa xoolihiisii neef ka mid uu dhurwaa ka dafay yey baa ka dafay dadna markaasuu ka soo ritay baa la yidhi yeygii baa intuu soo eegay buu ku yidhi rasiq ilaahay afka uu ii soo geliyey in aadanoo maxaad iiga ridatay buu ku yidhi waa dhurwaa oo kale matalan yey rasiqa ilaahay afka uu ii soo geliyey in aadanoo maxaad iiga ridatay markaasuu ninkii dhagaha qabsado wuxuu yidhi waa cajabaah addibu yatakallamu kalaama alins ma yey baa luqada bini aadanka igula hadlaaya yeygii baa jawaabo wuxuu ku yidhi waxaa aniga iga cajab badan baan kuu sheegi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo magaalada madiina soo gaadhay oo warkii samada ilaahay u soo dhiibay bini aadanka uga warramaya oo dadku ay la yaaban yihiin taasaa iga yaab badan ee orada madiina tag buu ku yidhi durwaa yaa ka hadliyane allahu rabbulcaalamiin saxaabigii allah raalli ka noqday xoolihiisii intuu isku urursaday ayuu soo kaxeeyoo magaaladii madiinuu soo geliyey deedna isla markiiba wuxuu u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam oo masaajidkiisii dhex taagan oo nebigeebii uu tegey ninkii acraabigu yidhi yaa rasuulallah arrinkaasaan arkay markaa buu nebigu saxaabada u yeedhay assalaatu jaamica buu nebigu yidhi assalaatu jaamica ereygaa hadday saxaabadu ay maqlaan waxay ogaan jireen in baahi diineed masjidka nebiga ay taallo oo nebi maxamed xaggiisa baaq inuu ka yimid bay ogaan jireen deedna nin walba markaa shaqada u haya markaa uu dhigaayey ka reerka jooga guriga uu ka soo baxayey ka meheradda jooga meheradda uu ka soo dhaqaaqaayey ka beerta falanaya beerta uu joojinayey ka dukaanka jooga dukaanka uu xidhayey haddii ay maqlaan assalaatu jaamica ereygaa haddii ay maqlaan waa iclaan weeyaan bimacnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inii baaqaya muslimiinee soo ajiiba hadday saxaabadu ay maqlaan nin walba shaqada uu markaa gacanta uu ku hayo halkaa intuu dhiguu masjidka nebiga iman jiray calayhi salaatu wasalaam waa taa iminka innaka ijtimaaca laynoogu yeedhay weeyaan kulan diineed baa jira macneegu waa maxay baaq diineed baa jira soo ajiiba weeyaan yaa macshara almuslimiin markaz alhidaaya jamaaco keliya maaha waxaa ku kulmaysa ummadoo dhan baa loogu baaqa ijtimaaca inay ka soo qayb gasho oo waxaa la leeyahay war kulan diineed baa jira nuqsaan diineed baa caalamka taalle nuqsaan adduunya maanta adduunyada ma taallo nuqsaan adduunyo adduunka ma taallo bal adduunyadu maanta way biirtay nolosha bini aadamkuna cidhiidhi bay sii galaysaa haddaan doonayna inay bini aadamku cidhiidhiga ay ka baxaan waa rujuuc ila diin waa in diinta loo soo noqdaa markaa nuqsaan diineed baa dalkeenna iyo caalamkaba taalle nuqsaantaa diineed saan u kebi lahayn ayaa laynoogu baaqay kulankaa diineed ka soo qayb gala zamankii nebiga waxaa loon jiray assalaatu jaamica hadday saxaabadu ereygaa ay maqlaan waxay ogaan jireen ay garan jireen in masjidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka jiro maaragtaane baahi diineed iyo dalab diineed shaqada nin walba uu haya intuu dhulka dhigo ayuu masjidka nebiga iman jiray calayhi salaatu wasalaam markaasuu uga warran yidhi waxaad la kulantay u sheeg asxaabta xayawaan hadlay oo xaq ku hadlay yaa ka hadliyey yaa ka hadliyey allahu rabbulcaalamiin jala jalaaluh marka diintaa qaaliga shaygii diintaa cilaaqa la yeeshana diintu qiime u yeelaysaa waana waxa keliya ilaahay bini aadamka ku qiimaynaya ogow diintu